Muddooyinkii dambe dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa la yimid qorshayaal ay ku hirgelinayaan hamigooda ku aadan inay sameeyaan waxyaabo cusub oo ay handisaan. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah samaynta nashqado kala duwan oo ku yimid fikir iyo hab curin cusub. Cabdulaahi waa arday wax ka barta jaamacadda Hormuud, gaar ahaan kulliyadda barashada culuumta ee makaanika. wuxuuna gacantiisa ku sameeyay gaarigan dhammaystiran oo maskaxdiisa uu ka hindisay. يعني مدة كوف كريه هرت إن معناها مسكحة دي واحد كجوحة يا ما فرسمة أنا قال لها إن صوب بندقه لكن جانس وما أنا هلين تان وحنا نقطة اللي رجلنا تان هذا وحنسي جاعد هرمون يونيفرسيتي أو طلق شيء لما أنا أرض كلية إنجنيرينج أو كابت أو ميكانيكال إنجنيرينج إنك كيف فائديستان مهندان أو قفك إنه هلا ورنمدي صوب بندقه أو سمايا. هلا بوركو صوب بندقه أرضجان وحنا إن مدة كهايي هرمرين بلاران تاني كومحرنا أود دقالة balse waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad la timaado hami dhab ah waana arinta u suurta gelisa Cabdulaahi inuu juhdi iyo dadaal xoog leh u galiyo sidoo u sameyn lahay gaarigani. Kax fara badan juhdi qarash inta buu naga galay hab ugu dhib badnaato markii adoo Soomaali joogo waxa sameynaa ay tiraahdo caqabado fara badan ala kulmay ko yani jaacad holkeeda maalinta ugu horeysay motorkii inala keenayay holka jaacada banaankiisa ku bilawnay يعني إنك استماش ضد بدن إيش جوجين لكن ضد كار مركز أرتكوا إمادة كوا فرصة ما كوا إنجنيرنج قارة وحكولي نيو شغال أنا نيه يسوع ليلة نيلا ده يعني أريد صومالي ويرتها خوف كل يرجلي وكلها نيو شقاه هيدين هر سعودة وحقبت ويرتها خوف كلها. عبد الله وحكوها من إنه سيخور مريو وحصوصار كيس عصب سيدو كلنا وصوص عرا جوارب بدن هلا بورك بالله وحقوب بهاي مال جلين حوجن تاسو أسور تجلي دونتو إنه سميه وحيابك كلا دوان.